مو قبل كري قبل أما كذا مسويك ما أنت ديني له إثبت على تعالى وحنا قبل كرا والله هو يكسور تودا فهم ويجرتها أنا وها ما له عليكم ورحمة الله وبركاته سكسون نقشة وناكسن سو دوادا لما ولا لها وحايد الله يهي مال وناكسن وقت كستو يكون طاي وناكسن waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo maamada ooyeysay oo gabadhii fahiimo la jeclay dhashay ama fahmo qof wasiibo magaca uu kala fahiimo fiicanaya ugu qoran fahiimo fiicanay hooyadeed oo aad u ooyeysa oo dhahaysa gabadhayda cadaalad ay rabtaa waxaan leeyahay horta hooyadaas ilaahay qalbiga u qaboojiyo fahiimana waxaan leeyahay ilaahay qalbiga dhibka ay ka tabanaysa ha ka bixiyo laakiin qofka gabar kastooy hooyo walbooy aniga iga bilow in aan markii lagu kufsado aadan cid ma lahayn ku talagal walaal ma aragteen oo walaashiisa la kufsada dhahaya ninkii walaashay kufsada waa dilayaa ragga inta ilaahay u naxariistay oo cabsida ilaahay ku weytaa maahane inta kale waa nin kufsaday iyo nin raba hadda inuu kufsado nin hadda ku tala jiraa gabar inuu kufsado gabar tiisana cadaalad u raadi maayo tulla dhalatana cadaalad u raadi maayo horta taa ogaada ragga Soomaaliyeed xeer u dhigan weeye in haddii gabar la kufsado laga soo qaado waxaan jirin ayadaba dhibka la saaro dhibanihii gardarnaa way dhiban tahay waxa la naga qariya naga fageeye xaafadda iyo meesha lagu kufsado dhan waa laga fageynaya gobol hadii lagu kufsado caasimadda la keenay caasimadda hadii lagu kufsadana gobol baa la geynaya tii social media la soo dhigaa iska badaaba taas nolosheeda dhan waa la bireeyay gabadhaas wixii ku dhacay wax u kacay oo ehela afartii beri unba social media laga sheegay fahiimo waxaan leeyahay fahiimooy fahmooy fahiimo fiicaneeyay nimanka ku dhahaya anaga garabkaaga taagan caawa nin intuu soo istaaga dhahaya waa guursanaya anaa guursanaya maba jirtaba nin dhahaya anaa guursanaya maba jirto gabar la soo kufsaday oo social media la soo dhigay ninna ma guursanayo mid kula dhashana garab kuma aha mid ku dhalana garab kuma aha waa xeerka rag u dhigteen waa mid kufsaday mid kufsan raba inta alla ka cabsigu ku weyn yahay maahane cadaaladana ilaahay unba ka sugaynaa rag Soomaaliyeed u maleemaa inay cadaalad u falayaan hooyadaasna waxaan leeyahay ilaahay qalbiga ha ku qaboojiyo gabadhaasna waxaan leeyahay qaluubteeda dabka ku shidan maba ka damaayo dabkaasi waqti dheer wuu ku shidnaanaya waayo qof subax walba la leeyahay waa tii la kufsada waa taasaa naagu habo ugu darnaadeen dumarku habo ugu darnaadeen inta dhaawacaysa dumar baa ugu daran alla dumarow isku dirnadiina ilaahu rabbiyo noo kaalmee dumarku isku daranaa ayagoo la dulmaayo ayagu inta raggu dulmo iyo intay ayagu isdulmaan dumarka intay ayagu isdulmaan baa badan fahiimo fiicanay waxaan leeyahay kuwa ku garab taagan ee isku kaa sawirayaana wax kuuma hayaan ku dhalana wax kuuma hayo waxa kugu dhacay waa xeerkii ragga u deganaa ee ahaa yaa inaan gabar la kufsado waxba laga soo qaadin waayo waa mid kufsan rabo mid kufsaday waana xeer u yaala car soo arag aabba Soomaaliyeed oo dhahaya gabadhayda ninka kufsaday waan dilayaa ma daynayo car soo arag waa wiil dhahaya walaashay ninka kufsaday geeri baan ka xigaa ma dhicin maalin dhayli
intaas oo gabdhood baa maalin kasta saacad kasta la kufsadaa aan kuwaan usoo taagnayn waxaaba lagu leeyahay dhakhtar la geymaayo oo in la kufsado in la ogaado lama rabo adigu kufsiga waaba dhacaba dhibaatada kale oo Soomaaliya sii taallaa waxa weeye dhakhtar la geymaayo waayo waxaa la ogaanaa in la kufsaday alla maxaan jaahilnahay oo jaahilnimadeenu xad ka dhaafta hooyadaas waxaan leeyahay ilaahay qalbiga ku qaboojiyo kufsi silac saxariir iyo baroor waan bagnaye gabadhaana waxaan leeyahay yaa boogta kugu taalla ilaahay ha kaa tiro alla unbaa awoodo inuu kaa tiro alla ha kaa tiro dhibka iyo xanuunkana waan kula dareemaynaa hiil iyo hoona garabkaagaan nahay insha allah dhammaan asxaabtana waxaan leeyahay inta i daawan doonto usoo duceeya gabadhaas ogow maanta haddaan ama gabadhaada la kufsan ama adiga lagu kufsan gondahaaga ka fiir waa xeer ragga Soomaaliyeed noo dhigteen inayna kufsadaan waxna laga soo qaadin waayo waa mid wax kufsaday mid kufsan doona dhammaantiin waa idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu